Gufacooyinka ishqigu kicinayo ayaa gees walba isaga yeedhay. Daad aad moodo in uu jacaylku danabeeyey ayaa labadoodaba isu maray. Sida heestan uu Cabdiqays curiyey sheegayso ayay jihadii ka luntay. Axmed reerkoodu waxa ay maal iyo muruqba u hureen sidii ay inankooda ula tacaali lahaayeen. Aabbihii oo jacayl iyo waayihiisa aan maqal cilmi boodhari dabadii ayay ka bilaabantay goondihiisa. Gabankii uu dhalay ayaa la qaldhabaya utuntii jacaylka. Dawada keliya ee lagu badbaadin karayaa waa deeqa oo ay darin ku wada jiifsadaan. Hees ayaa ahayd. dedan maahe daalacan daagal maahe waanaba sawaadiisa xaashaqa waa dadkiis doortee dedan maahe daala. Dhowr jeer ayuu isku dayey in uu odayaal urursho si ay ugu wardoonaan aabbaheed looguna qanciyo in uu inanta bixiyo intii uu ku talo xumoobi lahaa. Mar kasta oo loo tago hungo uun baa lagala soo noqdaa. Xaaladiisa oo geeri iyo nolol u dhaxaysa ayaa kalifaysa in kolba guuto la diro waxbase kama soo naaso cadda. Dadaal kasta oo la huray iyo tacab kasta oo la geliyey waxa ay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Odayga inanta dhalay ayaa laf dhuun gashay ku noqday dadaal kasta oo lagu samato bixin lahaa lamaanahan iscalmaday. Kaaga sii darane gooldi iyo hanjabaad aan kalago lahayn ayaa uu ku hayaa inantiisa. Odayga waxaa isu weheliya dhowr waxyaabood oo qaarna uu qarsanayay kuwana uu bannaan ka soo dhigay. In uu ka gungaadh aqooneed la rabo gabadhiisa waxa u dheer nacayb uu qabo wiilka inanta ka soo doonay. Waxa uu saluugay in wiil yar oo food dheere ah camalna aan hayni uu inantiisa soo hawaysto. Markase la soo hor fadhiisto waxa uu hadal ku soo gaabiyaa inantaydu gedihii guur loogu xilan lahaa ma gaadhin deeqi maadaama aabbaheed arrintii jiq kaga dhigay ma garanayso jid u furan oo aan ahayn in ay aqalka hoosta ka soo xidhato iskana oydo. Cid ay duruufta ku xeeran hoos ula wadaagto ma haysato. Carruurta iyada ayaa ugu weyn gabdhona inan 10 jir ah ayay walaalo yihiin. Hooyadeed oo gaashaan u noqon lahayd waa hore ayaa la oofsaday. Waxa ay wehel ka dhigataa akhrinta fariimo uu Axmed warqad ugu soo gudbiyey oo ubaxyo guduudan iyo wadnayaal lagu sharaxay. Hees ay isla dhegaysan jireen ayaa had iyo goor u daaran. Xaaladda ay ku sugan tahay iyo weydiimo heestu soo hor dhigayso ayaa si isula jaanqaadaya u malay jacayl iyo curintii Cabdiqays. Afarta jihaba dhawaaqeedu waa uu gaadhay. Ehelkeeda kale ma tahli karayaan in ay soo farigeliyaan urugada haysata maadaama aabbaheed kaga gudban yahay. Way isku buuqday oo hoos isula hadashay. Xishoodka ayaa dabraya oo sida Axmed dhawaaqeeda sare looma maqli jirin. Dhimbiilaha uu jacaylku firdhinayo ayaa nugleeyey oogada jidhkeeda markaas bay midab doorsoontay oo muuqeedii isbedelay. Aabbaheed in uu garaabo iska daayay waxa uu arkayay gabadh la soo weeraray oo duulaan lagu yahay. Ereyada catowga iyo calaacalka xambaarsan ee ka soo fulaya ma ahayn kuwo jixin ka helaya dadkii ugu dhowaa ee guriga kula noolaa taa beddelkeeda waa laga maadsan jiray. Hablihii soo booqan jiray ee dabdemiska u ahaa ayaa laga mamnuucay. Cunaqabatayn iyo bandow had iyo habeen ah ayaa la saaray. Markii warkii deeqi ka kala gooy Axmed waxa uu sameeyey wax kasta oo uu isleeyahay waad ku heli kartaa. Gaadhi ayuu codbaahiye saaray guriga gacalisadiisa oo in door ah u jiray ayuu hadba dhinac kaga yimi. Hees ay isla yaqaaneen ayuu codbaahiyuhu lalinayaa dhegaha deeqa ayaa loo dan leeyahay in ay toos ugu dhacdo. Waxa uu gudbinayaa fariin u dhigan in aanu weli quusan ee uu ku raad joogo sidii uu hanan lahaa. Heestu sidii ay u socotay qolkii ay joogtay ayay daf soo tidhi. Ereyada heesta iyo luuqda hobalkii codka tolmoonaa ee tubeec markii ay maqashay ayay hanqalka la soo kacday. وانجي تدو وانور تلقى الحوي نرور وانور تلقى الحوي نفسيتو
ونور القعر ونور ونور القعر ونصيبه نفس موحدك الثاني ما يجعل الساعة وحدنا وليسي ونقوم بكون سمايا. inta ay fadhigii ka soo kacday ayay daaqadda soo istaagtay mise waaba Axmed oo gaadhiga shirka ugu jira. Jidhiidhico ayaa ku soo istaagtay. Dareen quyro iyo kalgacal xambaarsan ayaa saaqay. Inta ay iska ilmaysay ayay allabari u jeedsatay, Ilaahow waadna aragtaa, naxariistaada noogu deeq, ayay ku qunuuday, ilaa intii uu ka tegayeyna daaqadda ayay sii taagnayd. Imaanshiyihiisu dardar cusub ayuu ku abuuray, waxa ay garowsatay inuu warkeeda u ooman yahay qaabkii ay warbixinteeda ugu gudbin lahayd ayay u tafaxaydatay. Bandowga la saaray iyo in cidla jaaqla ah lagu abudhay ayay rabtaa in ay Axmed ugu waranto. Si foolka fool ah in ay ula kulantaa ma hawl yara, waxaa saaran xanibaad oo dibadda looma oggola, telefoonna, hadalkiisa, aqalkaba waa hore ayaa laga jaray, waxa ay dantu ku kaliftay in ay warqad iyo qalin soo qaadato. Sadarro ay budhig uga dhigtay qamuunyada jacaylka iyo qulubka lagu hayo ayay qalinka ku duugtay. Dareenno isku dhafan oo yididiilo iyo yabaalba isugu jira ayay ku gantay. Waxa ay ugu warantay badweynta ay dhex dabaalanayaan, walaaca ay ka qabto in jacaylkoodu ka soo mudho caqabadaha haysta iyo dabaylaha ufada ku kiciyey. Sidan baanay warqada ku bilowday. Gacaliye, daaqadaha warwarka ee jacaylkeennu kugu furay, waan ogsoonahay. Ma ihi mid aad laabteeda si dhayal ah uga faaruqayso, ilays baad ii tahay iyo nal aan wax ku arko. Haddii aan awood u lahaan lahaa agtaada ayaan ka soo muuqan lahaa, dhaawaca kugu yaal baan dhaymo u noqon lahaa, dhayda macaan ee xubbiga ayaynu wada dhami lahayn, ubaxyo guduudan oo carfoon baan ogadaada ku daadin lahaa. Gacaliye, waad ogsoon tahay aqalka aan ku dhex seetaysanahay ee ooda la iigu jiiday, dagaalka igu socda ee dartaa iigu dhacaya, iyo dekanooyinka uu waayuhu i baday ee aan dhammaadka lahayn. Wax kasta oo igu dhaca waxa aan ku ilaabaa rajada aan ka qabo in ay maalin uun riyadeennu rumowdo. Waxa aan guddoonsaday samir iyo in aan saacadaha guusha ka warsugo. Markii ay fariinta gabagabaysay ayay raadisay meel ay u mariso. Walaasheedii ka yarayd ayay ciidan biday si ay warqadda ugu geyso gabadha ay saaxiibo yihiin oo ka mid ah kuwii laga mamnuucay, wayna la sii dartaarantay. Walaal, sida aad alaabtaas u waddo hebla u gee, cid kalena ha tusin iyada mooye. Warqaddii mahakan ee markiiba Axmed baa toos loogu gudbiyey. Dhambaalkii loo soo diray markii uu furayba waxaa ku soo xoomay dareen kalgacal oo in badan gaxsanaa, si qalbitaabad leh ayuu warqadda ugu dul gunuunucay. Jawaab uma holan ee waxa uu huruufay naftiisa gelgelinta habaaska miidhan ah ee uu fadhiyo, ayuu hiifay, markaas buu inta uu sare u booday heegan isgeliyey. Rajada haadaanta ku dhacday ayuu rabaa inuu soo nooleeyo, waase goor uu jacaylka u nuglaaday. Curinta fikrado uu ku hanto jacaylkiisa tamar uma hayo, goor hore ayay kala hadaafeen isaga iyo caafimaadkii lagu howlgeli lahaa. Baryahaaba awooddiisa jidheed ma fiicnayn. Dheefi kama degto, dhaqdhaqaaqna hadalkiisa daa, diif iyo darxumaba way ku idlaadeen. Markii taah mooyee wax kale laga waayey, waxaa la isla qaatay in aan guriga lagu sii hayn, sidana lagu sii eegan ee isbitaalka loola cararo. Buuga wehel jacayl la soco qaybta dambe insha Allah. Barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadadka heshay. Waxaad tahay qof muhiim noo ah.